dadka Soomaaliyeed ku nool dalka South Africa goobo ganacsi ay ku leeyihiin tuulooyin u dhow magaalada Cape Town ee caasimadda dalkaasi South Africa lagu sameeyay boob la xiriira goobaha ganacsiga ee Soomaalida ku nool halkaasi ay ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah ee xaafadaha u dhow magaalada Cape Town ee waliba tuulooyin ku hareeraysan ayaa waxa lagu bilaqaystay isla markaana boob lagu geystay deegaano ama goobo ay ku lahaayeen ganacsi halkaasi wariyaheena halkaasi Cabdullaahi Ibrahim ayaa warbixinta la xiriirta xaaladda Soomaalida ugu dambeysay ee ganacsiga ku lahaa goobahaasi noo soo diray danjiraha safarada Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika Jamaal Maxamed Barrow ayaa waxa uu magaalada Cape Town kula kulmay qaar kamid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee magaaladaasi kuwaas oo goobahooda ganacsiga bililiqo iyo boob ay u geysteen dadka deegaanka ee xaafadaha Nomsamo iyo Luanda oo ku yaala tuulada Strand oo kamid ah magaalada Cape Town safarka ayaa waxa uu booqday goobihii ganacsi ee Soomaalida Strand laga boobay halkaas oo warbixino arrinkan la xiriiray uu kaga dhageystay Soomaalida bismillah marka hore aad u mahadsantihiin shirkan jaraa'id aad ka soo qayb gasheen waxaa email ii soo diray ninka safaaradda wakiilka ah Cape Town email ii soo diray xaaladda dhacday iyo sida wax u dhaceen iyo dhibaatada iga soo sheekeeyay bas waxaan go'aansaday inaan galabtii aan soo baxo galabtii sabtiga ahayd inaan aan soo dhaqaajiyo si aan bal xaaladaasi aan u qiimeeyno habeenkii ayaan imid inta shalayna waxaan aadnay goobtii dhibaatada ka dhacday waxaan ku soo arkay dad Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro oo ganacsato ah oo aad u abaabulan oo isku xiran laakiin ka tambadisay dhibaatada markaas socotay ay ka tambadisay oo dhacday in la wada boobo mesela waxaa lagu qiyaasay 58 dukaan ganacsi oo Soomaali lahayd in meeshaasi lagu boobay ayagana waxay noo sheegeen boobkaas naftirkiisa inuu ka bilaabanayo toos arrimo kale ay ka bilaawdeen arrimo dhul ay ka bilaawdeen Soomaalida dhicitaanka la dhacayna waxaa keenay waa dadka ajaanibta kaliya meesha dukaaman ku lahaayeen ay ahaayeen markaan la kulanay waxay noo xaqiijiyeen ayaga iyo dadka deegaanka iyo mas'uuliyiinta deegaankaba inay isku xiran yihiin wada shaqayn fiican ka dhaxayso dhibaatadan ay ka xun yihiin taas ay noo xaqiijiyeen ugu dambeyn safiirka ayaa ka ballan qaaday ganacsatada oo la kulmay inuu dhibaatadooda u gudbin doono dawladda Soomaaliya si ay dawladda Koonfur Afrika uga hadasho dhacdooyinkan soo noqnoqday ee jinsi nacaybka ku salaysan oo inta badan lagu waxyeeleeyo Soomaalida waxaan kaloo rabnaa inaan gaarsiino dawladda South Africa inaan gaarsiino dhibaatadaasi dadka muwaadiniinta inay ku dhaceen waxaan kaloo rabnaa dawladda Soomaaliya inaan gaarsiino in dhibaatadaasi dhacday ayna la hadlaan dawladda South Africa ay macna wax kale ma aha inay dareensiiyaan in muwaadiniin Soomaali ah meeshan lagu dhibaateeyay sidoo kale safiirka ayaa ugu baaqay Soomaalida in ay ka foojignaadaan xilliyada ganacsigooda boobka loo geysanayo faldambiyeedyo laga yaabo in ay xaaladda uga sii daraan waxa kale oo aan rabaa inaan meesha ka sheego in dadka isku dayaya markii ku soo aruuraan dad ku soo socdaan inay isdifaacaan difaac ma noqon karo qof ma difaac karo boqol qof oo ku soo socoto markaas oo kale xeelad uu asiga naftiisa ku baxsan karo inuu sameeyo inuu dib kala geysanin inuu dad dilin inuu way taas nafskeed qayb ay ka noqonaysaa nabadgelyo xumada marka taasna waa ka digaa Cabdullaahi Ibrahim Dasar warbaahinta qaranka Soomaaliya Cape Town Koonfur Afrika